بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي waa Dr. Maxamed Abdullahi Aadan, dhakhtarka consultant physician ama internal medicine specialist ee isbitaalka Jaamacadda Jazeera. Alxamdulillah maanta waxaa isbitaalka ku soo kordhinay center loo yaqaan stroke center ama Soomaaliya si u taqaano cudurkan shalalka ama falaga ah oo wadanka ku soo badanaya maadaama cuduradii diabetic ee hypertension ugu batay. Center u qaas ah oo lagu tacaali doono bukaanadaas la soo dhacay xanuunka gacanta iyo afka iyo qalooday. waxaa naga caawin doona isbitaalka Cayni Shamsi qaab virtual ah professor neurologist ah oo 24 hours on board ah. bukaanada marka hore wacyigelin waxa ugu horeeyo in ay tahay cudurkan stroke ay tahay waqtiga ku xiran yahay mar walba waqtiga sii yaraado inay maskaxda iyo xiidada ee neerbaheeda sii dhimanayaan. marka waxaa jira waqti 4 saac bar inuu qofka nagu soo gaaro 4 saac bar qofka nagu soo gaaro waxaa sameyn doonaa dawooyin xiidka fura isla markiiba inaan bilaawno. marka in dadka lagu wacyigeliyo waqtigaas qofkii lug iyo gacan iyo af qalloocda hadalkii oo gabay markuu waqti yar isku arkabo inuu isbitaalka Jaamacadda Jazeera ka heli doono la tacaalid xiidkaas lagu furi doono oo shaqadiisana boqol soo laaban doonto insha Allah. cudurkan uu jira weligiis laakiin hadda muddooyinka dambe uu nagu soo badanayaa. cudurkan waxaa keenaya cudurrada kale nagu soo badanaya sokorta, dhiigkarka, kolestaroolka, cayilka waxyaabahaas mar walba ay joogaan waxa uu dambeeyo waxa inuu xirmo xididka maskaxda markuu xirane cudurkan falalka ama shalaga ayaa ka dhalan doona stroke loo yaqaan. dibad u qaadida waqti mobile haysta diyaarada ugu dambeeyso Dubai ku geynayso 6 hour waaye 3 saac iyo bar ama 4 saac bartaas gudaheeda waxaa wadanka looga qaban karaa in la sameeyo dawadii xididka ku furi lahayd maanta waa noo taala alxamdulillah. isbitaalkii labaad hadduu isbitaalka Digfaar sameyn jirin inaan noqono centerka ugu weyn ee Soomaaliya haddana centerka ugu weyn East Africa ee thrombolytic sameeyo maadadan xididka lagu furayo. adduunka waxaa lahay stroke waxa waa number 1 inuu soo galo cudurran cardiovascularka sidoo kale ta Soomaaliya bukaanada hadda 2 bukaan 3 bukaan amal noo jiifto sidoo kale ay stroke ugu soo dhacay uu soo badanaya. marka dadka in la baro wuxuu yahay cudurkan ka bacdina isbitaalka waqtigeeda imaadaan qofkina shaqadiisa ku fiicnaado shaqadiisa caado qabsan doona saas ayaa sameyn doona insha Allah. kahortag waa leeyahay kahortag waa in sokortii lala tacaalo dhiigkarkii lala tacaalo kolestaroolkii lala tacaalo waxyaabaha lagu garan doono cudurkan face ayaa loo soo gaabshaa hadduu facekaaga wejigaaga qalloocdo gacantaada fadhiisato lugtaada hadal gaabato ama dhaqaaqi weysay hadalkii ay gabtay intaas calaamad hadda isku aragtid walaal nagu imo isbitaalka Jaamacadda Jazeera kaas oo ku sameyn doona thrombolytic isla markii waqtiga muhiim waa muhiim daqiiqad walba oo sii daahdo waxa neerbihi ayaa sii dhiman doona. marka 3 saac 4 saac bar gudaheeda qofka ku imaado inuu ka badbaado cudurkan dilaaga ay halista ah ayaa laga yaabaa. mar hadda gacan ku fadhiisatay hadalkii ay gabtay hadda isku aragtid isla markiiba qofkaas laba soo ordo isla markiiba isbitaalka ayaa insha Allah nagu heynaa dawadii maanta ka daweyn lahayd xanuunkaas ku dhacay. waqtiga waa muhiim marka waqtiga aan ilaalin insha Allah. madaxa qaybta stroke ee Jaamacadda Cayni Shamsi ee dalka Masar Dr. Taamir Hussein ayaa ka mahadceliyay qaabka wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay xarunta isbitaalka Jaamacadda Jazeera. احنا بنبتدي مشوار وجزء كبير منه الاهتمام بالكفاءات في جامعة الجزيرة وتقويتها ودعمها في علاج المرضى وجزء كبير منه توفير الأدوية وتوفير الخدمات الصحية المكملة لمريض جلطة المخ سواء في المستشفى أو بعده. وعشان نقوي الحكاية دي احنا بنستخدم تكنولوجي حديثة زي التعليم عن بعد وزي استخدام الطب عن بعد. فاحنا هنوفر يعني Electronic Medical Record System أو نظام إلكتروني للبيانات الطبية